jiritaanka Somaliland ayuu halgam Somaliland بلادنا نحبها نعشقها بالأرواح نفديها jinsiyadiisa Soomaalinimo ayuu ku faana Somali baan ahay diridaba ana leh gaarisa ana leh waxa lagu ciilay xadhig iyo caburin maxallaygu xidhaya xagtir layga dhigaya ee lay xanibaya oo lay xaganaya laakiin xabsigu ima hayn karo qalbiga iyo maskaxdu xor baan ka ahay qalbigayga maadaama uu xor yahay maskaxdeedana dadka uu wax u qabtay xataa madaxweyne waxba uma qaban kuwa waalan ee uu u gurmaday halkan ayuu ku xidhan yahay geedkan jirridiisa ciid buu ku cunayaa lug baa go'an 20 sannadood ayuu ahaa xanuunka dhimirka kuwa baahan ee uu caawiyay iyo kuwa xanuunsanaya ee uu caafimaadka la doonay wanaaga uu sameeyay ee uu ku caawiyay boqolaal qoys weli dawladdu may dhiirigelin taa beddelkeedana xadhig iyo ciqaab ayay uga dhigtay waddankayga xoog badan xeelaad u jecelahay waddankayga xoog badan xeelaad u jecelahay laygama xigsanayay anjir baanu qubayaa boolisku waxay u geysteen gafaf sharciga ka hor imanaya inan buu dhacay inantii waxay mooday tuug dabadna ina yar baa yidhaah lagu cabdimaalig ha ku qaylin annaguna weli karsinay inta badhada qabatay ka tuuraysa waxaa la soo xidhay iyada oo aanay cidina soo ashkatayn waxaa la soo xidhay iyada oo waaran maxkamadeedan la haysan waxaa la baacsan jiray waddooyinka cabdimaalig oo la eryanayo ayaan annay inankii oo marar dilaacayo asan awal an xadiga sheegaysa hadda xagayga u saarado maanta hadda xagayga u saarado waa badbaadinahay askarta eryanaysayna waxay ku leeyihiin anu wax kama sheekayn karo faqasta babadmeydis intaasay doodiyeen hal abuurihii barnaamijka kaalmee kuwan ayaa la leeyahay isaga maanta kaalmee kan madaxweyne siida waan ku baryayaa siida madaxweyne wariyaha siida waxa waayay oo ooyaya 200 qof oo waalan oo xanuunsanayay oo uu khayri uga shaqayn jiray kuwa ku saamax hadduu wax sameeyo baanka waxbuu dhigtay credit buu leeyahay credit uu lahaa in la eego marka la isu jaro ilaahay xasanaadka iyo siyaasad qofku sameeyo wala soo eega waa dogi tii hadeeba korooyahay Itoobiya ka dhacaysay waa ninkii kaliya ee suxufiga ahaa ka hadlayay buu ahaa ee gurmaday marka nin la dhayalsan karo ma ninkaas wuxuu leeyahay mudnaashiyo in xuquuqdiisii loo soo celiyaan muddo badan hadda waa xukunaa intaa hadda ilaa cafiyo oo madaxweyne waxaan ku leenahay ilaahay ha ku cafiyo عفس أفي ترى 4 jeer ama 5 jeer baan dan warbaahinta ruucan inta jeer aanu hadalay waxaanu madaxweynaha Somaliland ka codsan madaxweyne ninkaas uu figaa ee samafalaha عفس أفي madaxweyne عفس أفي qof waa la diidi karaa laba waa la diidi karaa toba waa la diidi karaa laakiin madaxweyne waxa uu leenahay haddaan gobolkii tog dheer baahay naga aqbal arrinka maanta aan ka hadlayno ninka wariyaha ee samafalka waxa naga banaanaday gaaf weyn waxa naga dhindhaaday wax badan tafaal khayr badan baa naga maqnaaday waxaad ku daawan doontaan barnaamijka qareenka qaranka maalinimada axadda habeenka ay isniintu soo galayso saacadda bariga Afrika markay tahay 10 iyo 5 daqiiqo oo habeennimo